boosaaso oo fashiliyay qarax lagu soo qariyay gaari xamuul ah oo siday qudaar. warbixinta faafahintan magaalada boosaaso waxa inooga soo diray wariyaheena Xasan Haykal. ciidamada amniga ee boosaaso ayaa soo bandhigay gaari candamil ah oo qudaar waday oo lagu soo dhex qariyay waxyaabaha qaraxa oo laga qabtay kontaroolka magaalada boosaaso xarunta gobolka bari xilli la doonayay in la soo geliyo gudaha magaalada boosaaso. telefoonada ciidamada ay ku kala warqaataan ee foonayaha loo yaqaano taarikooyinka gaadiidka lagu xiray waliba daasado ayaa kamid ahaa waxyaabihii saxaafada loo soo bandhigay. taliyaha qaybta booliska gobolka bari Cabdixakiin Yuusuf Xuseen oo uu dhinac taagnaa gudoomiyaha gobolka bari Yuusuf Maxamed Ciisdhado iyo duqa degmada boosaaso injineer Yaasiin Mirib Maxamuud Dacar ayaa saxaafada uga warbixiyay sida ay ciidamada ugu suurta gashay qabashada qaraxaasi. waxaan rabnaa inaan u sharaxno dadweynaha waxa halka yaala waxay yihiin laga soo bilaabo khasnadaas afarta birood oo sanduuqyada ah taa kale lixda xabo waxa weeye waa bahalii lagu diyaariyay qaraxa lagu diyaarinayay oo ay ku jidho lixda marka waxa loogu talagalay kiiba labadii xababa in gaari loogu diyaariyo saddex gaari bay ugu talagaleen korka waxa ka saaran waa F1nadii kuwaani waa GF-yadii kuwaani waxa weeye anteenooyin casri ah oo qalab hadda annaga annaan haybalkii ay ayagu haystaan ay ku loogu duulayay waxaani waa jaajaradii labada bahal oo halka ku duuban oo mobiladahi waa kuwii ay bahalaha la dhex gelin lahaa oo qarax samayn lahaa kuwaani waa taargooyin waxa weeye halka waxa ku jira jeegaas waxa ku jira manqasyo loogu talagalay inay qalliin iyo operation ku sameystaan wixii dhaawac oo gaara bahasha halka ku jira labada cadar barafuuno weey midaas expresska iyo midda kale waa cadaro kulli ayaga yaqaan waxay ugu talagaleen waa kuwa ay dadka ku khaldaan oo ay qofku markay dirayaan ugu magaciiseeyaan alaabta tirada badan oo halka taala cadowga ummadda Soomaaliyeed cadowga reer Puntland waxay ku talagaleen dadka islaamka ah oo Sooman oo wax maslaxada iyo wax dhib ayagu ay u geysteen aan si jirinin inay inta qaataan dhulka la gooyaan oo ku dhibaateeyaan. ilaahay baa ku mahadsan ilaahay naga qabtay oo na sulansiiyay iyo ciidamada geesiyaanta oo feejigan baa mahadda iskale ilaahay baan uga mahad celinaynaa. sida daraadeed ummadda reer Puntland waxaan u sheegaynaa in loo soo shaqo tagay in cadow lagu yahay in loo soo duulay askari walba oo dariiqa taagay inta gaarigaas wuxuu soo maray xuduudka Puntland wuxuu ka soo galay Gaalkacyo Burtile alaab uu dhigay Gaalkacyo alaab uu dhigay Garowana alaab uu dhigay Qardhana alaab uu dhigay Boosaaso oo meeshii ugu dambeysay Puntland baana lagu qabtay intaasna waxa way Puntland buu soo dhex jiray. waxaan u leenahay marka feejignaada oo aragnina waxa la inii wada qudaar inay tahay suba inay ku aasan qarax baa inay ku aasan xoolaha inay wadaan iyo ariga laftigiisa inta qaataan xataa in iskaan la saaraa la rabaa calooshiis wax allaale iyo waxay ku talagelayaan oo kasto ay nagu dhibaateynayaan waa inagu dhibaateynayaan. dawladda naftigeedu waa inay abaal marisaa ciidamada heeganka iyagoo Sooman iyagoo muxuu ahayday dhiba badan qaba haddana operationada ku jira muxuu ahayday had iyo jeer cadowga la dagaalamayo gacanta ku dhigayo waxa weeye in la abaal mariyo oo mid walba wixii uu mutaystay waxa weeye la siiyo baan codsanaya. midda kale reer Puntland waxaan leeyahay tan ma aha bilow ma aha dhamaadkina ma aha waa arrin mashruuc iska socda weeye tii hadda ugu dambeysay waa tii muxuu ahayday 5 nin iyo qarax la qabtay. Xasan Haykal, Kalson TV, Boosaaso.